madaxweyne duqoobay oo daalan oo isagoon is-ogeyn isku kaadiyey sidii cunugii ayaa TV-yadu si live u baahiyeen xilli uu la khushuucsanaa heesta calanka, wuxuuna ku baraarugay isagoo surwaalkiisu qoyan yahay, kaadidu dhulka ay dareerayso, dadkiina fajac iyo amakaa ka soo haray, tiyo fadeexo iyo foolxumo ay haraysay maqaamkiisa siyaasiga. waxaase la yaab noqotay in xabsiga loo taxaabay kaaliyayaashii iyo saraakiishii qaabilsanaa habmaamuuska madaxweynaha, bacdamaa ay ka hortegi waayeen qalad ka yimi kaadi haysta hogaamiyaha keligii taliyaha. waxaana fashil ku soo dhammaaday xafladii lagu daahfurayay laami shiinuhu ay ka dhisayeen koonfurta Suudaan. in madaxweyne isku kaadiyey isagoo meel fagaara ah jooga ayaa maad iyo qosol looga dhigtay warbaahinta bulshada, mana jirin cid xeerisay xaaladiisa caafimaad xilli madaxweynaha da-du ay ka daba timi. Afrika oo ah qaarad xasilooni darro iyo saboolnimo daashatay, waxa sumcad xumo ku hogaamiya madax haddii ay mar kursiga fuulaan aan dhayal kaga degin, xataa haddii uu howlgab noqdo ama xanuuna la soo darsaan sida Salva Kiir oo kale. wuxuu ahaa jabhad dhiiggiisa u huray madax bannaanida dalkiisa hooyo, haddase waa keligii taliya diidan in xukunka si dimuqraadiya loola kala wareego. arrinta la yaab kale ayaa si ahayd in madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir uu isku kaadiyey isagoo taagan meel fagaara ah oo marti sharafi ay dhooban tahay. madaxweynaha ayaa iyadoo uu tabin toosa ku jiro telefishanka qaranka koonfurta Suudaan, waxaa mar qura kaamaraduhu qabteen madaxweynaha oo kaadi isku sii daayay, iyadoo uu dareemay goor xeera iyo fandhaal ay kala dhaceen oo kaadidu dhulka iyo dharkiisaba qoysay. sida sooyaalka ku taal, Salva Kiir waxa uu ka goostay ciidanka Suudaan 1983 isagoo uu weheliyo John Garang, waxayna asaaseen jabhaddii xoreynta Suudaan ilaa ugu dambeyn sanadii 2005 loo ogolaaday ismaamul goboleed, halkaasoo uu madaxweyne ka noqday John Garang, iyadoo Salva Kiirna lagu cimaamaday madaxweyne ku-xigeen. nasiib darro, muddo kooban kadib diyaarad ayaa la qaraxday madaxweyne John Garang, waxaana fursad helay Salva Kiir oo la wareegay booskii madaxweynaha ilaa ugu dambeyn sanadii 2011 koonfurta Suudaan ay noqdeen dal ka madax bannaan Suudaanta kale. waxaana tan iyo waagaa nidaam aan heshiis lagu ahayn oo dagaalo sukeeyay ay hareeyeen dalka ku maamulaya Salva Kiir oo sheegay inuusan diyaar u ahayn in xilka laga wareejiyo, tiyo uu ku sababeeyey inuu yahay qofka isku haya midnimada koonfurta Suudaan. dadka dhaliila xukunkiisa ayaa fadeexo iyo maad lagu shactaraysto ka soo qaaday shilkan ku dhacay hogaamiyaha ugu awoodda badan qoomiyadda diinka ee ku dhaqan dalka koonfurta Suudaan. balse arrintan ayaa lagu fasiray inay tahay infekshankaadi mareenka ku dhaca oo ay caan ku yihiin ragga marka ay duqoobaan. falcelin ballaaran oo ka dhalatay arrintan ayaa dadka qaar waxay eedaha kula duldhaceen filim qaadayaasha oo ay sheegeen inay habboonayd in laga jaro muuqaalka ama kaamarada laga leexiyo, halka dadyowga qaarkood ay tilmaameen in kamaramaanku uu ku saxnaa inuu dadka u soo tabiyo waxa goobta ka dhici kara, xumaan iyo wanaag waxay doonto ha noqotee. mucaaradkiisa ayaa sheegay inay koonfurta Suudaan ceeb ku tahay inuu hogaamiyo oday aan caafimaad qabin xubnaha jirkiisana ka warqabin, iyadoo la heli karo dad badan oo caafimaad qaba hogaankana kaga wanaagsan Salva Kiir. bishaaro Soomaaliyey, tani waa fursaddii aad faqriga iyo busaaradda kaga bixi lahayd. haddaad tahay qurbajoog qaata cayra ku filayn, haddii deymo ku daashaday ay dhiigga kaa reebeen, iyo kol haddaad shaqo la'aan Afrika ku tahay, waxaan ku haynaa fursadaad kumanaan kun oo dollar ku tabcan karto. kaalay noqo maalqabeen muddo kooban ku hela lacag xalaala oon xad lahayn. shirkadda caalamiga ee Forever Living oo laga leeyahay waddanka Maraykanka waxay idin haysaa fursad ganacsi oo dahabiya. haddii aad joogto dalkeena hooyo ee Soomaaliya, ganacsigan waxaa ku bilaabi kartaa lacag ka yar $398 Maraykanka. kol haddaad joogto wadamada qurbahana waxaad ku bilaabi kartaa dhaqaale aad u yar. haddaba la xiriir Manager Cusmaan oo ah ganacsade Soomaaliya oo 4 sano gudahood ku noqday hantiilaha ugu jeebka buuran shirkadda ganacsiga ee Forever Living. Manager Cusmaan wuxuu ka caawin doonaa sidii aad hadafkaaga iyo riyadaada ugu rumayn lahayd shirkadda Forever Living oo dad badan baraare iyo barwaaqo u horseeday. haddaba kala xiriir WhatsApp number +1 41 65 79 80 53.